هذا كليبكا قبطي runtii qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliland ah oo mas'uul ah oo in ay ku jirto damiir islaamnimo damiir wadaninimo damiir mas'uuliyadeed damiir yani aqeedada saxda ah ee islaamka ah marka uu dhageystay waxa ka kacday jirkiisa xad qaar baa ooyay qaar baa maroor dilaacay hooyadaasi waxa ay tiri xaalkeedu ku sugan yahay muwaadinad u dhalatay dalkan inay maanta shaarica istaagto oo ay gacanta hoorsato waa mid subxaanallah waxaan doonayaa inaan gaarsiiyo cidda ay khusayso darajada doontaba ha lahaatee war dadkan ilaahay ha lagaga yaabo war dadkan ilaahay ha lagaga yaabo oo dalkan ilaahay ha lagaga yaabo oo waxa ay ogsoonaataan xadiiskii uu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyuhibbu li akhihi bima yuhibbu li nafsihi warkii ilaahay nabi rumeeyo war waxa aad naftaada la jeceshahay walaalkana la jeclow walinka taajirka ah ee wax soo dejiya war waxa aad ogsoonaata hadii aad saro ugu qaado maxaan ku yiraahdaayay sicirka ummadaada oo aad la jeclaato naftaada in uu jeebkaagu buuxsamo waxaad ogsoonaata in aad jeeb kala gaajaysiinayso oo calool kala gaajaysiinayso ولنك وسيرك ماموليا وسائل محاكو هذا قولنا وحسود دجينيسا وروحد وكسوناتا وسير إن واجب تهي إن عاد قدتو حقك صارا مجتمعة وعاد وكسوناتو إن واجب كاغا تهي إن عاد كل على ستاجركا سيدو تصرفيو مدحوينها قرنك جمهورية الصوماليلاند waxaan doonayaa halkan in aan kelmad ka yiraahdo madaxweyne loogu soo daadag shaarica islaantaasi halkii ka hadlaysay kaalay nala dareen dhibaatada haysatay hooyada wuxuu yiri Umar bin Khattab hadii ay baqal dariiq ay martaka weydo joogta Ciraaq aniga ayaa la weydiinaya maalintii yawm qiyaamaha guriyaha Soomar madaxweyne oo suuqyada Soomar oo makhaayadaha kaalay oo danyarta la dareen haw madaxweyne markaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku barakayn dalkana barakayn madaxweyne waxa aad tahay hogaamiyihii dalka inta aad weysaysato oo sijaarad qaadato oo daaradaada dhex fadhiisato waxa aad tiraahdaa ilaahay dalkan aad iga dhigtay mas'uulka adaa casa wajallaahi waxa aad u shubtaa madar khayr qaba waxa aad bogooda isu marisaa burcad waxa aad ka yeeshaa dal maalinta yawm qiyaamaha marka aan ilaahay hortaago aan ku iraahdo rabbigayow dalkii aad igu maamusha ii dhiibtay mas'uuliyadiisa waa ka soo baxay ilaahayna kugu jaleeyay si aad u noqoto markaa mid kamid ah kuwa halka ilaahay harsada maalinta aanu harkala jirin tawsiir waxaan ku leeyahay taqillah ilaahay ka yaab gudo waajibkaaga ilaahayna subxaanahu wa ta'ala uu iska barbartaag oo ilaahay baa yiri wama yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib haddii aynu ku dhisno wax walba in ilaahay baqashadiisa subxaanahu wa ta'ala wallahi waxa aynu noqonaynaa kuwa ilaahay yiri haddii aad ku toosnaataan tubta ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin jaaxay waxa aad cuni doontaan waxa idinka sareeya iyo waxa idinka hooseeya iyo hareerihiinaba sidaa la ajrigeed waxa aan ugu baaqayaa dhammaan hay'adaha ay khusayso oo dhan arinta iyada maxaan ku asir barka ku eedan batroolkii cirka maray raashikii cirka maray
danyartii suuqa ay ka maqasheen waxa ay ku tiri inay ilaahay dadka kaga yaabaan oo ogsoonaadaan hadday seexdaan iyagoo dharagsan in kuwii ay mas-uulka ka ahaayeen gaajoonayaan iyaga oo ay seexanayaan iyaga oo gaajoonaya horta dareenka shacabku waa mas-uuliyaddii aan ugu dhaarannay inaanu xaqiijinno oo ahayd annaga iyo wasaraduba dhammaan manaasiibta kala duwan ay hayaan inaanu ugu shaqayno dalka si daacad ah oo ku aasaasan kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga aan gacanta saaray marka waxaan leeyahay wasiirka iyo qayrkiiba wasiirka oo qolka mas'uulka ma aha waxa ka mas'uul ah arrintan iyada aan laga bilaabo madaxweynaha lagu xigsiyo wasiirka lagu xigsiyo kamaaliyadda lagu xigsiyo tujaarta lagu xigsiyo retaileriska lagu xigsiyo kuwa ay soo distribute gareynaya cid kasta oo arrintan iyada gacan ku leh waxaan abiir halkan uga dirayaa inay ilaahay ka yaabaan haddii uu qofku ku fashilmo mas'uuliyadiisa ceeb ma aha inuu yiraahdo waan ku fashilmay mas'uuliyadaydii ee cid kale oo aan aniga ahayn ha loo magacaabo laakiin ceebtu waxa weeyaan adiga oo mas'uuliyadaada ku fashilmay inaad halkiisii joogto waxaan ka baryayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu ilaahay dhamaantiinba tubta toosan oo ina wadato